garaad maxamed garaad salebaan oo kamid ah simada gobolada Sool iyo Buuhoodle oo saaka warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa jawaabada ka bixiyay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda garaadka arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka hadlay xaajo uguba oo isleeyahay waa arrin ku cusub kulli sharafta iyo madaxtinimada iyo mas'uuliyadda arrintaas oo ah wasiirka maaliyadda oo ku hadlay hadal aan is-iri kuma wacna sharaftiisa ta qaranka iyo ta madaxweynihii la doortay ee soo xushay waxa kale oo ayna arrintaas ku wacnayn dadkii soo jireenka ahaa ee wadaagga ahaa ee naga dhaxeeyay annaga iyo beesha ka soo jeeday hadalkaas oo ahaa hadal xanuun badan oo qof kasta oo caqliga ziniimka ahi saaran yahay kama shaqsaday ma ahayn wasiir qaran inta uu miidiya istaago oo magaaladii dadka aslahaa tago inuu ku hadlo hadallada uu ku hadlo dhulbahante waa la yaqaanaa waa nimo ku suntan dhaqan iyo diin labadaba arrintaasi waa dhacdo xanuun badan waxa aanu uga fadhinaa madaxweynaha jamhuuriyadda taabada u cutata ee ku habboon ee daweyn karta boogtaa dhaawaca ah iyadoo lagu jiro waqti xasaasiya waqti aad xasaasiya oo aan hadalada aan ka soo kalin ay dalbasho weyn sameynayaan oo ka hor imanaysa siyaasadda dowladda qodobka waxaan uga fadhinaa madaxweynaha sidoo kale garaad maxamed garaad salebaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ka codsaday inuu cafis u fidiyo boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadow iyo abwaanad Nicimo Qoran oo ku xiran gudaha magaalada Hargeysa waxaan codsanayaa madaxweynaha ka codsanayaa boqor Buurmadow iyo gabadha xiran in labadaba cafisku madaxtinimadu ka mid yahay dadka madaxda ah wax saamaxa ilaahayna wax saamaxa labadaba cafis in u fariiso